kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan nii hayaa cunto aad iyo aad u macaan oo si fudud aan iniin tusi doono sida loo sameeyo. Mar labaad soo dhawaada walaalayaal. Haddii aad channelkayga ku cusub tahay, please subscribe garee. Subscribe-ka dhankiisa gambaleelka ku xigo riix si aad mar walbo videogayga aad u heshid. asxaabta maanta waxaan nii hayaa dish loo yaqaano chicken enchilada. waa Mexican dish sidaad qaarkiin u taqaaniin. Kan waxaan ku hayaa Enchiladas Sauce oo aan kasoo iibsaday dukaanka. Sidaad u jeediin gobol basal ah ayaan soo jarjartay. Haddaad rabtid hal basal oo idil baad isticmaali kartaa. Chickenkayga waa kan oo diyaar ah. waxaan haystaa oo kale cusbo iyo black pepper. nooca cheese-ka aan isticmaalayo maanta waa laba nooc, cheese-ka Cheddar iyo Mozzarella. qasab ma aha inaad isticmaashid laba nooc oo cheese ah, hal cheese waa kafaayo. corn tortilladeeni oo diyaar ah sidaad u jeediin. maanta inta ingredients aan isticmaali doono cuntadeenaan ku dari doono oo diyaar ah waa kasaa. birdaabo ayaan saaray in yar oo breast chicken tenders. sidaad u jeediin in yaroo biyo oo meel dheer ayaan ku daray. waxaan ku daray oo kale in yaroo cusbo ah iyo in yaroo black pepper ah. intaas yariista oo biyahaad u jeediin ayuu chickenkeena noogu kari doonaa. biyaha dhan markay kursadaan uu chickenka si fiican u karo ayaan ka qaadi doonaa. hadda sidaad u jeediin chickenkii ayaan rogrogayaa siduu si fiican labada dhanba ooga karo. ila daawada asxaabta. sidaad u jeediin sidaas baan u rogrogayaa siduu biyaha dhan kulli u wada qabsado. asxaabta sidaad u jeediin chickenkeena inta kore oo dhan wuu ka bislaaday. waxaan sugaynaa intuu biyaheena ka gursanayo uu chickenkana gudaha si fiican ooga bislaanay. maasha allah, chickenkeeni biyihii uu ka wada gursaday. sidaad u jeediin chickenkii wuu bislaaday. xoogaa yaraan dabka ku dhaafi doonaa si fiican siduu u bislaado. si fiican oo mataatax mala dhihi jiray siduu noqdo. insha allah mar dhow dabka chickenka waan ka qaadi doonaa. sidaad u jeediin chickenkii aad iyo aad buu u bislaaday. mar dhow dabka intaan ka qaado ayaan chickenka si yaryar aan u jarjari doonaa. sidaad u jeediin chickenkeeni waa diyaar. gacanta ayaan ku jarjaray. haddaa rabtid mindi baad ku jarjaran kartaa. chickenka sidaad u jeediin si fiican oo quruxsan buu usoo baxay oo mataatax ah oo si fiican ayuu noogu karay. in yaroo saliid ayaan birdaawada ku shubay. gobolkeenii basasha oo noo jarjarsanaa ayaan ku daray. hadda sidaad u jeediin basasheenii ayaan karsanaynaa si yar oo xoogaa si fiican markuu u karo xoogaa in yaroo golden ah markuu noo noqdo aan ku dari doonaa chickenkeena. hadda sidaad u jeediin waxaan ku daray in yaroo cusbo ah iyo black pepper. sidaad u jeediin maxaa la dhahayay basasheenii sidaan rabay oo diyaar ah waaye. chickenkii oo diyaarkii ahaa ayaan korka kaga shubay. intaas ayaan isku walaaqi doonaa. si fiican ayaan iskugu karin doonaa kulli si fiican sida isugu galaan basasha iyo chickenkaba. corn tortilladii aan bilowga nitusayay sidaan u subiyo waatanaa. in yaroo saliid ah ayaan ku karkarinayaa. muhiimada aan ugu suubinayo waxay tahay hadhow markaan enchiladada aan karsanayno siday nooga burburin corn tortillada. haddaan saan suubinin hadhow corn tortillada wuu kaa jabjabayaa. aniga maanta waxaan suubiyey 17 xabo. qasab ma aha inaad intaas oo xabo aad suubisid. waxaad suubin kartaa in adiga kugu filan ama asxaabtaada haddaad u karinaysid inigu filan. sidaad u jeediin hadda enchilada saucekeena in yar inaan dabka ku karino waaye ilaa 10 daqiiqo ama ka yar iluu
kulli si fiican u soo karkaro. markuu si fiican u soo karkaro dabka waan ka daminaynaa. markaas waxaan bilaabeynaa sida cuntadeeni isugu dardari lahayn. sida aad u jeediin enchilada sauce-kii dabkii si fiican uu karkarayaa. waad walaaqaysaa, tartiib aad u walaaqaysaa. dabka xoogaa hadaa rabtid ka yara gaabi ilaa xoogaa 10 daqiiqo aan dabka ku haynaynaa. markaas waxaan bilaabeynaa hawsheena insha Allah. sauce-keena waa diyaar. sidaad u jeediin baking tray ayaan ku wada daadinayaa sauce-ka si fiican siduu hadhow enchiladadeena hoosta qoyaan ooga yeesho. sauce-ka dhan haska wada isticmaalin, qaar soo reebo aad hadhow korka kaga shubtid. wakaasa hawsheeni way noo bilaabatay. hadda sidaad u jeediin tortilladii baan soo qaatay. in yaroo chicken aan korka dhexda kaga daadiyey. cheese-kii baan ku daadiyey. hadda waan isku laabayaa si fiican siduu nooga daadanin. sidaad aragtiin tray-geeni baking-ka ahaa ayaan gudaha dhex dhigay. si fiican oo saf ah ayaan kulli wada isku dhigdhigi doonaa. hadda sidaad u jeediin chickenkii aan soo qaaday ilaa xoogaa aan tusayaa sida loo suubiyo. waa kaasaa saasaas ugu laabaysaa. muhiimadda waxaa waaye labada dhan oo afka ah in ay istaabtaan. markaad dhex dhigaysid meesha tray-gaaga labadaba hoos inay afgembis ee aad u dhigtid waaye. korkor haddaad u dhigtid hadhow wixii dhan wuu kaa daadanayaa. aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan nila wadaago sidaan aniga u karsado enchiladada. waxaan jeclaan lahaa inaad idinkana sidoo kale reerkiina aad ugu karisiin cuntada noocan oo kale. sidaad u jeediin saan ayaan kulli isku ag dhigdhigay. waa kana kulli dhammaadkii intii sauce-ka ii soo hadhay ayaan hadda kor aan kaga shubayaa meel walba. muhiimadda waxaa waa inaad gaarsiisid sauce-kaaga siduu hadhow enchilada macaan oo aad ka yaabtid siday kugu noqoto. hadda waxa waaye qaybtii ugu dambeysay. cheese-keeni ayaan korka kulli kaga bilbileynaa. kulli sidaad u jeedid cheese-ka ayaan ku dul shubeynaa. si fiican inaad cheese-kaaga u gaarsiisid hareeraha dhexda meel walbaba si fiican u gaarsii. wakaasa asxaabta hawshii intii cusleed way naga dhacday. enchiladadeena waa diyaar. ofinka ayaan gelinaynaa preheat. waxaan suubinaynaa 350 for 45 minutes. sida u jeediin suugadeeni enchiladadeeni kulli sida isugu soo wada baxeen. wakaasa hadda ofinka ayaan gelinaynaa 45 daqiiqo ayaan ku haynaynaa 350 preheat. waa waray ka sheekeeyahe enchiladadeeni waa diyaar. ofinka waxaa kasoo bixisaa cheese-kaaga markuu golden u ekaado oo enchiladadaada kulli si fiican u karo. hadda waa serve garayn kartaa macaan. halkan waxaan ku hayaa sour cream iyo basal baar. labadan ayaan maanta korshubkeena aan ka dhigan doonaa oo enchiladada aan ku sharaxi doonaa.
hadda enchiladadena waa diyaar. Qaando ballaaran ayaad soo qaadanaysaa sidaad enchiladada aad ugu soo baxsatid sidaad u jeediin. maasha allah, enchiladadeni hadda weel baan soo qaadanayaa aan dul saarto ilaa 3 xabo oo enchilado ayaan dul saartay sidaad u jeediin. hadda korshubkeeni sour creamkii ayaan korka kaga shubay. wakaasaa waxaan kaloo aan korka kaga shubi doonaa basal baar sidaad u jeediin. sida hadhow intaas marka la isku cuno innaba caadi ma aha, lagama sheekeyn karo. waa kana enchiladadii aan cunayo si fiican bay iigu baxday. maasha allah, maasha allah. sidaad u jeediin chickenkii siduu u karay, dhexda in yaroo chicken ah, sour creamkii, basal baartii, intaas ayaa isku qabanaysaa. innaba caadi ma aha, maasha allah.